Sasa. Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Magacayga waxaa la xiriiray waxaan umaleynaa dhalinyaro badan inaan iskaranayno. Waxaan rabaa in halkan ka sheego in muhiim tahay in la taageero dawladda Soomaaliyeed oo annaga dhan aan leenahay oo cid ay qaas u tahay si jirin oo Soomaaliya oo dhan matasho. Dhalinyarta waxaan diyaar lanahay inaan dawladdeena taageerno oo wax qabsano. Qurbahan waa lagu dhamaaday carruurtii Soomaalida xabsiga ka buuxdaa Minnesota, Columbus, meel walba aan joogno. Aniga waxaa dadka ka waraya dhalinyarada Soomaalida iyo dhibaatada haysto maadaama aan la dhaqmo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa inaan u sheego dadka shacabka Soomaaliyeed inaan isdiyaarino oo waddankeena aan samaysano. Adduunku wuu ka tegay in la iska qabsado iyo xukumayo waddankan aan joogno sida ula socotaan maalin walba waxaa la isku haystaa economiga dagaal economiga socdo. Marka adduunku wuu ka tegay in kursi la isku qabsado yaa waddan wadi karo ay maraysaa. Marka Soomaaliya please aan ka tashano waxaan dawladdeena aan taageerno. aad u mahadsantiin. Bismillahirrahmanirrahim. Marka ugu horeysa waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa nimankii iyaga isku dayay inay fuliyaan xafladda tan oo caawaan halkan isugu nimid. waxaan rabaa inaan in yar yidhaahdo Soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa aynu halkan isugu nimid ama ujeedada caawaan halkan isugu nimid inay tahay taageero aynu u jeedinayno dawladda midnimo qaran ee uu madaxweynuhu ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed, ra'iisul wasaarana uu ka yahay Umar Cabdirashiid Ali Sharmaarke. waxaan ognahay in madaxweynuhu ay doorteen xildhibaano ku dhow ilaa iyo 300 oo xildhibaan. waxaan ognahay oo daahay naga saarneen in madaxweynuhu la doortay ra'iisul wasaarihiisa Umar Cabdirashiid Ali Sharmaarke isaguna uu dhistay golahiisii wasiirada oo ka kooban 36 xubnood. inta hartayna wasiirro ku-xigeenada la soo magacaabi doono. wax badan baanu wasiirro magacawnay, wax badan baanu madaxweyne magacawnay. Soomaaliya 18 sanadood ayay ku jirtay carqalad. sanadba sanadka ka dambeeyana aad moodaysid in ay isbedelaysay oo siyaasad hor ay la imaanaysay. haddaad xasuusataan waxa la yiri waxa jira burcad badeed. waxaanu maqalnay wax jira la yiraahdo burcadda beriga. waxaanu sugaynaa ilaahay ha naga qabtee burcadda cirka. ilaahay ha naga qabto. waxba kuma aha iyaduna inay timaado, laakiin waxa looga badbaadi karaa not only inaanu shakhsi isku nimid inaanu taageerno ama family ama reer waxaanu isku nimid inaanu taageerno dawladda midnimo qaran ee uu madax ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed. Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waa shakhsina waxa uu qaban karo waa garan kareena. wuxuu u baahan yahay shacab midaysan oo taageersan oo isku xiran. bal musiibadana haysta fiiriya waxaynu ku wada hadalnaa hal luqad af Soomaali baynu ku wada hadalnaa. isku midab baynu nahay, isku dhaqan baynu nahay. maxaa inagu dhacay marka ninka ajnabiga ay weydiiyo yiraahdo war maxaa dagaalka ka socda Soomaaliya maxay tahay waxaan ugu macnay ma garan karaayo. Soomaaliya hal madaxweyne ay yeelanaysaa, 2 ma yeelanayso, 3 ma yeelanayso, 4 ma yeelanayso. waxaan oran lahaa halala shaqeeyo. haddaynu nahay shacabka dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga waxaan ku bogaadinayaa haddaynu nahay Soomaali aynu la shaqeyno madaxweyne kastoo yimaada si loo gaaro horumar iyo nabad. dadkeennii baa baaba'ay. ma doonayno wiil Soomaaliyeed oo dambe inuu ku dhinto xabad.